إن الشركات وين نقطة شركات مجالها اللي بس لقى وقاعدين لكن وطن كندا أما حتى اسكندنافيا أدون كلن لكن شن سنة كباعة وحنا نقنو شركتها أو نرويج وين والله 20 سنة جير يصدح إلى 20 سنة جير صوماليا وارد جامعات وانا ملكياشة iyo asaasayaasha shirkad samayso goofiyadaha ay dhalinyaradu xirtaan waxay ku haminayaan in 5 sano gudahood ay shirkadoodu noqoto mid kamid ah shirkadaha ugu waaweyn ee dharka samayso Norway iyo wadamada kale ee Scandinavianka ku soo dhawaada barnaamijka Dhambaal daawadyaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Dhambaal ee warbaahinta Nursam News magacaygu waa Saciid Maxamed Muuse bulsho ahaan waxaa la tilmaamaa in Soomaalidu ay tahay dad leh awood karti iyo xirfad ganacsi waxaana taa ka muuqataa wadamada ay Soomaalidu ku soo qaxeen ee bariga Afrika ama kuwa dariska la Soomaaliya ilaa aad ka gaaraysid Koonfur Afrika laakiin marka la joogo Norway ama guud ahaan wadamadan Scandinavianka Soomaalidu hadda ay degan tahay wax ka badan 30 sano wili ganacsiga Soomaalidu wuxuu dhaafi leeyahay xawaalad iyo maqaaxi macnaheedu maahan in labada shay ay yihiin waxna laga ganacsado laakiin waxay ka dhigan tahay in labaduba ay ku qatamaan laba shay qowmiyad iyo qabiil labadaas oo ah laba lid ku ah ganacsiga si banaad sanadihii ugu dambeeyay waxa soo badanayay shirkadaha ay asaaseen ama wax ku leeyihiin dhalinyarada Soomaalida shirkadahaas qaarkood waxay marayaan ama gaareen meel sare oo milaayiin dollar sanadkii ay dhaliyaan qaarna waxay marayaan heer dhexe halka kuwana ay wili yihiin bilow loogooyinkan ama summadaha ganacsiga garabka ee ka muuqdo dhammaantood waa shirkado ay asaaseen dhalinyaro Soomaaliya barnaamijka Dhambaal ee isbuucan waxaa marti noogu ah Haashim Maxamed Cabdi iyo Liibaan Qadar Salaad waa laba wiil oo arday dhalinyaro Soomaaliya waxay dhigtaan jaamacadda ganacsiga Norway ee BE Liibaan iyo Haashim iyo wiil kale oo saaxiibkooda waxay sanado ka hor bilaabeen shirkad samayso goofiyadaha ay dhalinyaradu xirtaan ama ku xaragoodaan inkastoo shirkadooda ay bilaabeen sanado ka hor haddana maanta waxaa shirkadda ka shaqeyso isku dar 6 qof waxayna ku haminayaan inay mar ama maalin u noqdaan shirkad ganacsi oo weyn oo laga yaqaan Norway oo dhan iyo caalamka guud ahaan sanadkoodii ugu horeeyay ee nolosha hal abuurista ganacsiga waxay Liibaan iyo Haashim barteen mid ka mid ah casharada ugu muhiimsan ganacsiga iyo guud ahaan nolosha kaas oo ah guuldarrada koowaad waxay faro u noqon kartaa guushaada dambe waase haddii aad ka barato qaladkii aad shalay samaysay aadna saxdo waxay iga waramayaan shirkad ay sameeyeen oo ku horeysatan ay maanta ka shaqeeyaan iyo meeshii ku dambeysay iyo waxay ka barteen shirkadda furnay oo bilaabna shaqada waxa shaqeynay 3 bilood iyo in ka badan oo waxa fureen dukaanka oo website-ka waxa la hadlayna dadka dharka noo sameyn kara factory-ga waxa la designs-ka sameynayna waxa ka shaqeynayna marka gaarnay may waxa dhahnaa okay hada bas waa hayna in ugu filan waa fureen dukaanka dadka dhan laga gaban doonaan marka dukaanka waa furnay 3 bilood waxa laga gatay 8 t-shirt 8 finaand la gatay markaas waxa dhahnay maxaa dhacay aan waxaan dadka waxaan ku soo boodiyaan waxaan leena sameynay finaanjaal khatar ah marka waxa dhahnay okay waa fakirina hadda waxa galeena waa fakirina waxa arkayna waa fiirina waxa soo sameynay qalad sameynay iyo waxa si fiican sameynay hadna soo bilaabana shaqada oo ku noqonana ilaan mar walba aan ku xarabnaa furno shirkadana oo anaka kaligeena ka shaqeyno oo dadka la marabna oo shaqeyno ilaan bilaagi hore ay ahayd waxaan inaan ka sameeyno dhar oo anaka jecelnahay laakiin waxaan gaadnay kibaa dadka marka hadalnay inay rabaan dhar oo ayaga jecel yihiin ma aha wax aad jeceshahay inaad dadka ku qasatid so waxaan fahmnay dhalinyaro badan baa magaalada degan oo magaaladooda jecel so aan sameeyno koofiyado oo magaalada tusayso basically so 7 koofiyado oo 7 meel ka imaadan Oslo mid madoowa mid buluuga mid gaduuda mid
mid cagaar ah oo koofiyad kasta waxay tusaysaa maxaa la meesha ka timaada iyo waxaad jeceshahay inaad samaysid. intaan shirkadan caadiyadan markaan ka shaqaynaynay waxaan sameynay dad badan baa la hadalnay, dad badan perspectiveskooda baa hadalnay sida ayaga wax u jecel yihiin. kabacdi hal san kabacdi markaan sii shaqaynaynay oo dad la shakeysan wax badan fahmnay oo waxaan bilaabnay inaan koofiyadha gadno oo meesha nagu qaadatay 3 bil inaan 8 fanaanad ku gadno. waxay nagu qaadatay 3 isbuuc inaan gadno 100 koofiyad. la bilaabo ganacsi cusub ma ahan wax fudud. haddii aad tahay qof dhalinyaro oo aan khibrad hore usoo lahayna way kasii adkaan kartaa. waxaan Liibaan iyo Haashim weydiiyey caqabadihii ugu waaweynaa ee soo wajahay inta ay ka shaqaynayeen hirgelinta shirkadooda iyo qaabka ay uga gudbeen. wax kastoo soo harimaado fadadna ahaan hataa wax yar haday ahayd anagu waxaan noo lahayd wax weyn, laakiin waxaan fahmnay dib kasta ku soo hortimaado wax baa ka baran kartaa. shirkad kastada markaa furtay dowladda waxay kaa rabaan inaa xisaabteeda inay structure oo sida xisaabta loo sameeyo waxaa weeye rules you have to follow. So dibtana waxay ahayd sida anaga nagu hore anagu hadda nagu horeysay waxay first time so u sameynayno iyo maxaa la system ku gelinayo waxaasna markaan shaqada marka gelinaynay wax oo new ah bay nagu ahayd. so xisaab qaadka waxay nagu qaatay waqti badan. haddana laakiin waxaa haysana qof oo shaqada noo sameyn karo oo ogsida shaqada noo sameeyo. kale oo xoraa nagu weynaa sanadkii hore wuxuu ahaa waxaa nagu yaraa inaan helno koofiyadaasha inay waqti sax ku imaadaan. ilan waxaa ku sameynaa China lagu sameeyo koofiyadaasha. marka la shaqeynaysidna Chinese-ka waxa waaye aad u fududa. waxa isla fudud waaye laakiin waxa waaye communication-ka isaga business ku sameynaysa anagu sameeyna aad u kala duwan yihiin. marka ay ku cusub tahay waxa arkay dib badan mari doonta waxa umanaysa wax waleena si fiican ku soconayaan laakiin mar walba dib waaye oo maalin waxa way problem cusub. hada email-ka furtid waxa maalin problem cusub. marka dib badan dhinac naga soo maray oo koofiyadaasha ilaan dad badan ma rabaan koofiyadaasha gataan laakiin koofiyadaasha ugu yaraayeen. marka hadda waxaan qaadatay 2-3 bilood inaan barno sidaas ula shaqeynayno koofiyadaasha noo sameeya Chinese-ka. haddana si fiican dhinac socota laakiin dib badan oo naga soo gaar dhinacaas. dad badan ayaa dhici karta inay aaminsan yihiin in qofku uu u baahan yahay lacag tiro badan si uu ganacsi u bilaabo, laakiin Liibaan iyo Haashim waxay rumaysan yihiin in helista fikrad fiican oo ganacsi ah iyo fahmidda baahida suuqa ay ka muhiimsan tahay helista lacag. arkiya ma baahnid lacag badan hada rabtina business fulited. haddana waxay ku xirantahay businesska nooca fulinaysid. businessyal badan u baahan lacag badan kuwana u baahno. marka anaka ma baahnan hada runtii sheegna lacag badan ko waxa u baahneen in oo nagu filan oo koofiyadaashan ku sameyn karno. hadhowna lacagtaas marka gadno ku isticmaalnay ina shirkada si weynaysiina. marka haddaa haysatid idea oo rabtina shirkad furtid lacag ku fikirin inay ku hor istaagayso lacag meel wala ka heli kartaa. hada aad shaqaysid anaga labadan waa shaqeynaa shaqo kale lacagta halkaas nagu soo gasho ku isticmaal karnaa shirkada ku furno. maalmahan waxaan galnay waqti oo wax kasta fideed noo ah. lacag badan uma baahnid, faham badan uma baahnid maxaa la in the field. wax kasto internetka ka baran baa ka baran kartaa. aniga oo kale markaan shaqada markaan galnay inaan bilaabnay wax badan waxaan ka baranay videos YouTube-ka wax badan ka baranay maxaa la wax akhriska internetka wax kasta ka soo baranay. so ma baahnid maxaa la fahamka weyn maxaa la lacagta badan iyo xataa dadka oo meesha industry-ga ka gelisid inay dad waaweyn uma baahnid inay ku caawiyaan. wax kasta adaa samayn kartid. haddii aan weydiiyo shirkaddan hadda way koraysaa macaamiil badan ayaad haysataan, maxaa idin qorshaa sanadaha soo socda, maxaa idin muuqdo? tusaalahaan haddaan weydiin lahaa 5 sano kadib xaggee rabtaa inaad joogtaan? waxaan rabnaa inaan galno inay shirkad weyn noqoto. shirkad oo magaaladan bas laga ogaanin laakiin waddankan oo dhan
ama xataa Scandinavia adduunka dhan laakiin shan sano ka bacdi waxaa rabnaa noqono shirkadaha oo Norway ugu weyn soo Hashim sheegayo koofidada marna gadna waxa rabnaa dhar nooc walay qaba maxaa dhahaa boorso wax walay oo ku xiran dhanka meesha fashionka hadna waxa rabnaa ina shirkado kale xataa noocyal kala furno oo waxaasna ideal badan marka hadda goolkeena oo noo hore waxa sanad wala bil walay ina company ina shirkada sii weynayno oo lacagta soo galaysa iyo koofiyasha gadayna dharka gadayna sii bataan baraha bulshadu ma aysan bedelin oo kaliya qaabka ay dadku wada xiriiraan ama warka ay soo gudbiyaan sidoo kale waxay saameyn aad u weyn ku yeesheen qaabka ay shirkaduhu u suuqiyaan alaabtooda ama ay ula xiriiraan saameyntan ugu yeeshaan macaamiishooda shirkadaha iibiya waxyaabaha ama dharka ay dhalinyaradu xiiseeyaan baraha bulshadu waxay u leeyihiin ahmiyad gaar ah Liibaan iyo Hashim arintaas mar hore ayay fahansanaayeen sababtan social media wax badan ku isticmaalno waxa weeye dhalinyarada dhan isticmaasho waa meesha dadka maxaa la dhahaa maalin kasta telefoonka waxaan ogaanay halkii qof telefoonkiisa wuxuu fiiriyaa 150 jeer ilaan maalintii ilaan dad kasta telefonkooda ku jiraan social media maxaa la dhahaa focuskooda in wax kasta so waxaan ogaanay hadaan anaka systemkan ka faa'iideysan karno waa inaan anaka social media wax badan galno so inaan fahmno sida u shaqeyso iyo dadka sida u fakeraan iyo sida ay u isticmaalaan waxaasna markaan bilaan inaan fahmno waxaan ogaanay waa fudeed inaa wax xataa laga gadi karo business laga samaysan karo oo laga shaqeyn karo anaga waxaan kusoo kornay waqti oo TV-ga shirkadayaashu waxay siin jireen laakiin hadda waxaa jira soo Hashim sheegay social media meeshaasna waa dadka dhan dhalinyaraha ilaa dadka xataa waaweyn waqtigood ku isticmaalaan marka hadartan halkaasna wax ku gadid ama ku xayeysiisid misdiika sida TV-ga wax lagu xayeysiin jira ku xayeysiina waxaa 7 seconds waxa tusaa dadka dhan koofidada hadda gadanayaan taas ma soconaysa ina dadka tustid laba koofidada oo sida u bartaan adhihin iga gado hadda ninka arkaan 1 2 3 4 jeer hadda ninka rabana koofidada aad ku soo xasuusanayaan marka ina si kale loo fakiro waay ma baahan lacag badan hada social media wax ku xayeysiinaysid awal kale hada 10 sano ka hor rabna xayeysiin sameeyna anagu waxa baahan 500,000 hada TV-ga helena 7 seconds marka waxa waaye opportunity weyn laakiin si fiican fikirtu waa sayid dadkan u tusab koofidada ama fanaanadeeda hadda ma soo gadanaya waxa process dheer oo asdin qof atusa koofidan hal mar ganaa dadka marka hada ka fikirtay marka social media ku jirtay dukaan ma ahan mis eesid hada koofid ku soo hormarta oo gadana waxda hada koofidan koofid fiican waa tan dharka meesma waxa fikiraysa hadhow ma ku soo noqonaysa soo taasna saasana hadii tusaalahan aan ahay qof dhalinyaro 17 18 20 idinkoo kala camal aan rabo inaan sameeyo shirkad aan ii gaara oo dharka sameeyo ama waxun sameeyo maxaad igula talin lahayd haddii idin weydiinayo su'aashaas maanta maxaad dhihi lahayd samee idinkoo fiirinay wixii aad idinku soo aragteen khibradiina furo bilaw hadana barasada shirkadu wadaysan hadaas dhahdid kuwa barnaamijka shirkad loo furo hadana furna weligaa shirkad ku furmayso marka koo furo hadana baro faafan ka sameeyo karta dadka la hadal asdhihin dadka ayna kulli cunsuriyihiin ama ka qaadanayaan adiyagaaga ama ina idinka shirkada ama furtaan dadka la hadal fiir waxay ku dhahaan oo wax wala ina bartay wax dadku la hadlaysid wax wala sheegin laakiin xoolaha sheeg inta qofkan xoolaha sheeg hadhow ka arag waxay ku dhahaan tan saddexaadna waxa business ka bartid salaadaas dhahay nooc badan oo baran karta hada waxa jira internetka waxa ka fiirsan karta video fiican buugaal akhrisan karta course internetka gali karta ugu dambeyn Hashim iyo Liibaan waxay fariin u dirayaan dhalinyarada kale ee Soomaalida ee ku dhaqan Norway iyo wadamada kale ee daadooda oo kala lacag meel kasta ka heli kartaa hada wax xun sameynaysid ama hada wax fiican hada sameynaysid lacag wax heli kartaa
laakiin sida lacagta ma helaysid baa waana isweydiisid. ma rabtaa inaad noqotid qofka la fiiriyo oo dhaho kan xashiish ku gadaa mise wuxuu xun u sameeyaa, mise ma rabtaa inaad noqotid kan sameeye kan laga sheego marka laga sheekeynayo wax fiican u sameeye ama wax fiican buu lacag ka sameeye. ilaan waa fudeed society-ga inaan hadnahay inaan amba wax kastoo astaajin karaa, waxaan dhahi karaa astaajiya maha lacag badan hadda heli karaa haddaan xashiishka dhan galo ama waxun hadaan sameeyo. laakiin dadka kula nool uma fiicno. walaalahaaga yar ama walaalaha kaa weyn ama booyin kaa yar hadday ku fiiriyaan ma rabtaa inaad noqotid qofka oo waxyaabaha xun ka sameeyo. waxaa rabtaa inaad noqotid qof oo la arki karo lagu dhahi karo qofkaas arbaa inaad noqdo. so faa'iidadeena sida liibaan sidii hore wuxuu dhahay fursad badan baa haysnaa. uma baahnid waxa xun inaad geshid. lacagtaada lacag xalaal ah waa heli kartaa, lacag badan waa heli kartaa. dhalinyarada Soomaalida inta ku kortay inta ku nool waxay haystaan fursad badan oo weyn oo ka faa'iideysan karaan. hadaas dhehaysid aabahii hooyadooda kala shaqo way shaqeeyaan ama shaqeeyaan lacag badan soo gasho taas aad ma rabtaa inaa ciyaalkaaga kula taasna ku fikiraan. marka aad waxay haysataa fursad weyn oo ka faa'iideysan kartid. ilaan hada wadankan ku nool nahay, hada rabtaan shirkad fulatid aad u fududahay, hada rabtaan iskool dhigtid aad u fududahay, hada rabtaan shaqo la ka shaqeysid aad u fududahay. waxay haysataa fursad badan inaad taasna ka faa'iideysid aad iyo aad u fiican tahay. oo lis caawiyo oo Soomaalida is caawiyaan. lacag badan waad samayn kartaa haddii aad la timaado kartideeda iyo awoodeeda. waxaad noqon kartaa milyaneer sida Shaafici Maxamed Aadan oo ah 27 sano jir milyaneer Soomaali ah. Som Somalier vi har fortsatt att hanaysan att qofku ugu yaraa in history-ga soo galay Global Shapers in Norway. so marka wali alaan kana marka 27 jir baan ahay 20 jir oo groupkeena soo galay ma jirto. sheekada Shaafici oo ah mid kamid ah sheekooyinka ugu xiisaha badan Soomaalida Norway waxaad kaga bagan doontaa barnaamijka Dhambaal ee isbuuca dambe. balse intaas ayuu isbuucan iyaga daawadayaal barnaamijka idin soo diyaarinay. intaan ku kulmi doona hawada mar dambe waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadiino. waxaan mahad gaar ah u celinayaa bahda farsamada.